ilaahay naxariisti jannaha ka waraabiye maanta waxa Ceel Biyood ku yaala deegaanka Agamsaha ee duleedka degmada Arabsiyo ee gobolkani Gabiley ka dhacday dhacdo naxdin leh oo laba qof oo raga ku geeriyoodeen Ceel Biyood ay qodayeen beer biyood ku taala degmadaasi dadka deegaanka Agamsaha ayaa warbaahinta u xaqiijiyay shaqaalihii Ceel Biyoodkaasi qodayay ay naftooda ku waayeen kadib markii ceelku ku soo dumay waxana ka badbaaday hal qof oo kamid ahaa saddex qof oo iyagu ka shaqeynaya Ceel Biyoodkaasi galaaftay labada ruux barasaabka gobolka Gabiley iyo mas'uuliyiin kale oo halkaasi u gaaray sida ay ugu fidiyaan dadkaasi gurmad ayaa tacsi tiiraanyada u diray halkan maanta waxaynu joognaa waa degmada Arabsiyo iyo deegaankan oo kamid ah Agabsaha maanta halkan waxa ceel ku dumay laba nin oo deegaanka kamid ah oo kana shaqeynayay ceelkan ruuxaantii maanta waxay tahay horta labada nin waa la soo saaray ninka kalena waa meedkiisa waa ku jira labadeenaba waa geeriba la xisaabinaya waxaan leenahay horta qoyskii ay ka baxeen iyo heeladii iyo dadka deegaankaba ilaahay samiriye ma ka siiyo waxaan halkan markaa anagu gurmadahan ugu nimid bal inaanu hawsha wixii aanu kala qayb galno haddaanu maamulka gomada iyo degmadaba nahay maamulka Arabsiyana waa nala joogaa ilaa shicib waa la soo gurmaday haddii ay noqon lahayd wiishashkii haddii ay noqon lahayd lacag waxaanu dalabnay imka forkliftii gacanta dheerayd si ay bal uga soo caawiso joogoo dheeraaday meesha 20 mitir ay gaarayso runtii dadaalkaasanu ku jirnaa ilaa intaanu ka soo saarayno meydka labaadna waanu hawsheeda waan wadaynaa marka dadka deegaanka waxaan kula dardaarmaynaa iyo dadka kale gobolkaba waa xilli roobaad in waqtigan ciidu jilicsan tahay dooxuna uu jiro tobanka shanta talaabo uu jiro in feejignaan gaar laga sameeyo oo aanu dadku durtaba ku dhiiran in ay si fudud u galaan waa masiibo weeye ilaahay waxaan uga baryaynaa labada qof ee ku geeriyooday in ilaahay naxariis janno ka waraabiyo inuu samriye iimaan saadiqa ilaahay ka siiyo ilaa hadda hawshii waanu wadnaa qalabkii sida fiican uga saari lahaana waanu dalbanay waad garan karaysaa cagaf weyn oo cagaftan bookline la yiraahdo ka saari kartana waxa weeye gaari xamaala dib u soo qaadaya hargeysu ka soo qaadaya taas wax ka qaban kartaa cagafyadan kale sheewashay waxyaabo noo yaala ma aha kuwa ka saari kara inay sii dumiyaan mooyaane iyo naxdinun baan dadkii iyo maamulkii gobolka iyo maamulkii degmaduba naxdinun bay la taagan yihiin marka insha Allah walaal ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay noo fududeeyo markii ceelkii saddexaad ee Arabsiyahan geerida foosha xun leh ka dhacdo dadkuna waxaan uga digaynaa inay ka digtoonaadaan waqtiyada roobabka ehelkii iyo qaraabadii ka baxeena samiriye ibaan ilaahay ka siiyo marka hore wax qodi ila 10 ba qodi tool isku diyaar gareynayo oo qaybtii kale dhaadhicin qaybtii kale marka hore ay yiraahdeen inta ugu liigay xagga sare aynu ka shaqeyno ayaa wuxuu dhacay saddexdii nin ugu horeeyay baa ku dhacay markaa saddexdii nin ugu horeeyay mid uu ka soo boodayo mijaha ayuu qayb ka soo gaadho waa laga gaadhay laba nin midna gudaha hoos ku jiray marka qolada argagaxdo kan dhexda ku jiray waa la gaadh lahayd inuu gudaha hoos ku jiray la moodo nabarba hoos u socday marka ay waxa ku dhintay laba marxuum ku dhintay Allah naxariistay halkan waxa ka dhacday geeri tiiraanyo iyo naxdin iyo foolxumo leh waana masiibadii saddexaad ee nagu soo noqnoqotay haddaanu nahay beeraleyda Arabsiyo ilaa Agamsaha hareeraheeda waa dhacdadii saddexaad waa ceelkii saddexaad ee Dumay waa ceelkii saddexaad oo ay ku dhintaan maanta laba nin mar hore saddex baa ku dhintay mar hore laba nin baa naga dhintay maxaan kula inta jajabtay waa markii iyaguna dheer oo mar walba ceelasha naga jajaba waa dhibaato nagu soo noqnoqoto oo beeraleydan reer Arabsiyood ama reer Agamsadood aad u jecel wax soo saarka in wax la soo baxaan masiibo ku soo noqnoqoto weeyaan taas oo nu leenahay horta waqti roobaadka markuu dhugsan rayska uga dhergo hal laga taxadiro oo hal iska daayo maalinta yoomka iyo labada yoomba in ceelashan laga qoto mustaanada si kastaba ahaatee bulshada ku dhaqan deegaanka Agamsaha iyo guud ahaan gobolkani Gabiley ayaa wali dadaal ugu jira sida ay gudaha uga soo saari lahaayeen Ceel Biyoodkaasi halka qof ee gudaha ugu jira waxana ilaa haatan wali socda dadaal lagu doonayo in dibadda lagu keeno meedkaasi Guuled Cali Ibraahim Kacse Sab TV deegaanka Agamsaha